بسم الله الرحمن الرحيم ومالي سبتي إلهي سبتنا خير كي إلهي نسيو سبتي هالكا أو بدنا عافماد iyo cimri dheer iyo cibaado taama iyo cilmi suuban hayna sii aamiin wadnahaygu ama damiirkaygu wuxuu sii waayey qof Soomaaliya oo qof kaloo Soomaaliya Ingiriis kula hadlaya ama Finnish kula hadlaya ama Swedish kula hadlaya ama Hollandiis kula hadlaya ama Norwegian kula hadlaya ama Danish kula hadlaya marka waxaan go'aan ku gaaray inaan wax ka qabto qof kaliya wax shakhsi ahaan dadkii iga horreeyay iyaga afkii Soomaalida muxuu ahaye meel hoose geynaya iyaga ka khashaafaya iyaga sharaf ridaya afka Soomaaliga marka waxaan siri adigu kaliya wax qabo 2010kii ayaa magaalada maktabad yar oo ku taala ayaa gabar Bakistaana ka shaqeynaysa oo ku dhalatay waddanka wiil kaloo Soomaaliya la socda deedna waxaan ku yidhi halkaa iminka af Ingiriis baa ku qoran Urduna wuu ku qoran yahay macaamiisha idinku badan ama dadka ugu badan ee maktabadda yimaada waa Soomaali af Soomaali ku qor waxay igu tiri weligay kama fikirin laakiin waa fikir fiican bay igu tiri weligay kama fikirin laakiin waa fikir fiican waa 2010kii waa 15 sano ka hor marka weligeed qof Soomaali u sheegay iska daayay Soomaalidu gabadh Finnisha oo shirkad aan doonayay inaan af Soomaali ugu turjumo macluumaad oo aan wada shaqaysano ayaa gabadha shirkadda u shaqaysa iyadoo shirkadda waxay ka tahay shaqaale ayaa email bay istirta waxay u tiri dumar Soomaaliya waxay igu yiraahdaan haddaan saxo gabadh Soomaaliya waxay igu tiri bay tiri af Soomaaliga looma baahna waayo dadku Finnishkay ku wada hadlaan Soomaalida email aan ku celiyay waxaan ku yiri waa qofka talada ku siiyay shirkadaada ayuu doonayay inuu meel kaga dhaco waa runtaa bay igu tiri marka Soomaalidii ayaa af Soomaaligii cadow ku ah hooyooyinkiiba cadow ku ah aabayaashiiba cadow ku ah kuwa xawaalada haysta cadow ku ah kuwa dukaamada haysta cadow ku ah kuwa siyaasiyiinta cadow ku ah kuwa suxufiyiinta cadow ku ah dukaamada Hargeysa iyo xamarka furan magacyadooda qof damiir leh inuu wax ka iibsado maaha laakiin damiirkii baa dhintay dadka markuu damiirku dhinto wuu iska socdaa 20 jir buu ku dhintaa laakiin 60 jir iyo 80 jir baa lagu aasaa marka af Soomaaliga waan u qaadan waayay in qof kale qof Soomaali Ingiriis kula hadlo ama qofka kale kula hadlo marka waxbaan ka qabtay marka dukaamadan tagaa hooyooyinka Soomaaliyeed baan uga sheekeeyaa qiimaha af Soomaaligu leeyahay maqaaxiyahan tagaa waxaan uga sheekeeyaa qiimaha af Soomaaligu leeyahay waxaan la kulmaa odayaal waaweyn iminka 60 iyo 70 iyo cagacagaynaya oo yiraahdo wadankii wax ku soo bartay jaamacad la foolan ka soo baxay la foolaha ay haysata waan aqaana af Soomaaliga si fiican baan u aqaana deedna Ingiriis buu igula hadlaa mid maaha laba maaha saddex maaha afar deedna Soomaaligiisu xitaa ma dhamaystirna haddana faan buu ayuu taagan yahay halkaa Soomaaliga waan aqaana waxbaan soo bartay halkan oo markii dambena waxaa laga soo diray Ruushka iyo Talyaaniga oo deedna 10kii kelmadood ee Soomaaliya ama 10kii weerood ee Soomaaliya ugu yiraahdaba 3 ama 4 baa Ingiriisa Soomaaligiisa kale toos maaha oo qof si isugu xidhan kara maaha jumlad fiican marka dhibaataa jirta qab baa jira qab ilaahay qabka uu necbi kibirka uu necbi qofku haddaan waxba aqoon waxaa la yidhahdaa waxa ma aqaan waxa ugu fiican waxa weeye waxa ma aqaan war waxaan soo bartay anigu 80kii waxaa laga joogaa 40 sano laga joogaa 80meeyada horaanteedii waa 40 sano iyo 3 sano qofku 80kii ka baxay ama 80kii ka baxay wax ma akhrida ma walaal wax ma akhriyo laakiin warkaan daawadaayo adduunka waa la socdaa warku waxa weeye wuxuu ka dhigayaa qof adduunka la socda laakiin waxba lama socotid su'aal haddaan ku weydiiyo raali noqo warku maanta maxaa daawataa ma soo koranay waxaan daawaday muxuu ahaye Ingiriiska mid joogtay waxaan joogay 26 sano joogay Ingiriisku sidoo u shaqeeyaa dawladdu sidoo u shaqeysaa
nin yaroo afdheer baa tahay hay weydiin su-aasha. Warku wuxuu qofka siiyaa aqoon beena, yani wuxuu isleeyahay qofku waa taqaanaa laakiin maaha, waa khayaali ayuu qofka niyadiisa geliya. marka taasaa ayaa waxaan u baahnay, laakiin sabir. waan diyaar garoobay, jir ahaan waan diyaar garoobay, maskax ahaan waan diyaar garoobay, ruux ahaanna waan diyaar garoobay alxamdulilah. imika dhowr iyo toban sanaan diyaar garoobayay intaba. marka wixii la hor yimaada, carqaladii la hor yimaada waan aqaanaa sida loo xaliyo ilaahay idinkiisa, waayo ilaahay baan tala saartay, go-aanna waan gaadhay, ilaahayna tala waan saartay. ama xadiiskii nabiga sal alay slam, awrkayga waan xidhay, ilaahayna tala waan saartay, anaa ficilka marka waqti badan waan geliyey baaritaanka, dooda, sida qofka dabeecadda adag loola dhaqmo, ka dabeecadda wanaagsan sida lagu korto. marka odayaasha soomaaliyeed ee 60 ilaa 70 ka caqaynaya waa kuwa ugu daran, qabna uu ku jiraa, cilmina ma yaqaaniin.